Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa xikmado. Shimbirta dul saaran geedka dushiisa marnaba kama baqayso in ay laanta la jabto, sababtoo ah waxay kalsooni badan ku qabtaa baalasheeda. Markasta aaminsanow naftaada. Erayada waa sida furayaasha oo kale, haddii aad si sax ah u doorato waxay furi karaan qalbi kasta, waxay aamusin karaan af kasta. Farxaddu ma ahan inaad hesho dhammaan waxa aad rabto, waa inaad raaxo ku dareento waxa aad haysato. Qof kasta oo aad la kulantaa wuxuu ku jiraa dagaal aanad waxba ka ogeyn. Had iyo jeer noqo qof naxariis badan. Masaafada u dhaxaysa riyooyinkaaga iyo xaqiiqadaada ayaa waxaa la dhahaa ficil. Labada dagaalyahan ee ugu awoodda badan waa samirka iyo waqtiga. Haddii aad wax yar i aragto, wax yar baan qabanayaa. Si kasta aad u mashquulsanaatide, waa inaad waqti u heshaa wax akhriska, ama waa inaad naftaada u dhiibtaa jaahilnimo aad adiga dooratay. Haddii aad dareento in wax kasta kaa lumayaan, xasuuso geedahaba sanad walba waxa ay lumiyaan baalashooda, haddana ay sii taagnaadaan, ayna sugin in maalmo fiican ay soo maraan. Qaar waxa ay ku fiican yihiin dugsiga, dadka qaar waxa ay ku fiican yihiin nolosha. Inaan dadka qaar ka jaro noloshayda micnaheedu ma aha inaan ayaga necabahay, micnaheedu waa inaan qadariyo naftayda. Ma jiro qof weligii isbeddel sameeyey isagoo la mid ah qof kasta oo kale. Qoysku waa sida laamaha geedka oo kale, waxaynu u kornaa jihooyin kala duwan, balse haddana jirridda isku mid ayaynu ka nahay. Carabku ma lahan lafo, balse wuxuu aad ugu filan yahay inuu jebiyo qalbi. Sidaa daraaddeed, ka taxadar erayadaada. Inaad qof wanaagsan khiyaantaa waa sidii aad dheeman tuurtay oo kale, oo aad qaadatay dhagax. Haddii aad raadinayso saaxiib aan cilad lahayn, waxaad noqon doontaa saaxiib la'aan. Inaad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa micnaheedu ma ahan oo keliya inaad mar walba faraxsanaato. Sidoo kale waa inaad garataa waqtiyada adag inay weli jiraan maalmo adag oo ka dambeeya. Qiimaha ay naftaada ku yeelanayso bulshada dhexdeeda adiga ayaa iska leh. Haddii aad isku aragto qof liita oo aanan waxba qaban karin, qof liita ayaad noqonaysaa. Haddii aad isku aragto qof wax qaban kara, waad qabanaysaa, weliba sida ugu wanaagsan. Waad gaari doontaa waxa aad ku haminayso oo khayr iyo wanaag u horseedaya naftaada iyo bulshadaada. Markay doonto ha noqotee, Alle tala saaro. Dulqaadka badi, qadarka rumaysnow, horay u soco xitaa sida diinka aad u socotide. Haddaad doonto 10 jeer guuldarrayso, laakiin ha niyad jabin. Maalin baad gaari doontaa adoo bulshada ka dhex iftiimayana waa la arki doonaa. Una noolow inaad noqotid qof sharaf leh.